waxaa jira guur la yiraahdo guurka meeraxadka ama Khudbo Sirada oo kaas oo dhalinyaradu xitaa iyagu aan la isku qasbin intay sheekaystaan soob waxa u badnaaday raggu inay la soo hindisaan gabadhu ay ku akhriyaan kadib ay aqbasho laakiin marka la sheekaysto dhalinyarada duruufay ku sheegayaan inay ku qasbtay arrimahaasi ma ka hadashay Khudbo Sirada aad iyo aad yani maxaa keena horta Khudbo Sirada maxaa keena waa su'aal laba waxyaalood baa keena gabadha in ninka hoos ee uga hadasho ay guursato يعني كلسوني انت على قف انه يجلسوا وحكينا يا وحلا دهو Soomaali hadda ay ani waa ku jecelahay waarkaadina lacag bay igu xirayaan ani waa ku jecelahay hadda ma ku dhisan karo waxa arkaysaa qof muthaqaf ah hadda ma aha gabdhaha yaryarka 18 age ka yani qof muthaqaf oo jaamacada dhiganayo oo waxyaalo badan garanayo ama shaqaysanayo inuu ku kalifay inuu hoos guursado walidaalika guurkaas waa kala hadalnaa anaga oo aan fiirinayna jawaanib badan curfi ahaan iyo maxaa la dhahaa islaamnimo ahaan ba intaba laakiin waxay u baahan tahay in fox badan la saaro oo laga wada hadlo waliba magaalada Muqdisho aad bay ugu badan tahay ma la jirto magaalooyin kale dadku watay waxa la sheegaa inay ku jiraan dad xaddaadii dhanjam ka baxay oo xitaa mas'uul ahaan waaweyn oo ku oranaya duruufo baa jirta qofkii hoos ku guursado marka arrimahaas ya mas'uuliyad qof weyn yani weyn ha daadii dhanjam ka baxay oo dhahaya duruufo badan baa jirta hoos ku guursado yani guurka horta waxay dhahayaan duruufo badan aa jirto guurka la cusleeyay horta waxa la dhahaa Soomaalidu waxay ku maamulaa geedkii orod lagu kor orod baa looga soo dagaa guurkan qorsoodiga ay hablaheenu ay sameynayaan ma oga inay gadaal ayadu dhibaato ku soo yani ku noqon doonto ma oga yani hadhowati ma u maleynayo gabar yani nin kula taliyay inuu hoos u guursan doono bir inuu sharfi doono uma maleynayo yani ahaan caasha ahaan iyo aqligayga ahaan inkastoo ay jiri karaan ragga duruufo rasmi ah haystay hadhowna markii Ilaahay baab gabadhan Ilaahay wuxuu u sameeyay wali buu sameeyay gabadha bikrada ah wali baa loo sameeyay in istiidaan lagu weydiisto ma fahantay waligeeda ana yaa nikaaxin karo walidaalika nin luqluq ku jiro marka oo afgooyo fadhiyo ama meel kala fadhiyo in uu meheriyo diinta islaamka halkee horta anaga asaasigeena hadda diinteena islaamka ku soo laabano gabar aan waligeeda laga istiidaansan guurkeeda sidee buu yahay wax badan ina isweydiino waay maaha ina wax laga codsan ayadoo laga codsan sida aabaheed oo kale ama walaalkeed ama adeerkeed oo kale waxyaalo badan in soo maro waay laakiin wax la iska dhaadhiciyo waaye oo Soomaalidan iska dhaadhiciyeen waxya duruufo badan ay jiro duruufta maanta ku guursanaysid oo baawur ku qaadanaysid gurigeed ugu imaw gabadha si sharaf leh oo qurux badan waaridkeed waan lagu sharfayaa adna waaridkana waxaan leeyahay xoogaa taysiir zawaaj sameeyaan oo si wax la fududeeyo si ilmuhu ugu caawimo aad iyo aad Ameerikii wax la mid ah fududeeyaan gabdhaha ugu xiran tahay gabdhaha way ku xiran tahay waalidku uusan ka hadli karin meherka oo xuquuqaha gabadha ay leedahay marka soo ma qurux badan gabdhuhu inay meherka fududeeyaan hadiiba ninka uu soo doonanayo oo alaalo in ka soo yiraahdaan arooskeyga inuu intaas gabaariya lagu guuriyaa hodheer laga tumaa arrimahaas soo rag waa wax gadaal anaga nooga soo waxayna gabadha hotel looga tumo in yani baawur tiro badan oo asaas aan waxna curfigeena ahayn baawur tiro badan la isku daba taxo oo israaf badan la sameeyay ayadoo jirto masaakiin tiro badan oo jirto masaakiin aad u tiro badan yani baahanayaan hotel in wax la aado laakiin qof walba waxa wanaagsan in uu wax taqdiid lagu sameeyo adiga hadaadan awoodin zawaajka waxa waaye hadaadan awoodin isku soo diyaar garow anaga waa soo diyaarinaya laazim labada qofood inay isdiyaariyaan wiilku waxa arkaysaa wiilku maaliyan buu isku soo diyaariyay laakiin ruuxiyan isku ma diyaarsana ruuxiyan maxaa ka wada ma yaqaano gabadhan waxay ku leedahay oo xuquuqa ma yaqaano gabadhan sidoo uu macaamilaan lahayd ma yaqaano just gabadhan sidoo kale ma taqaano wiilka xuquuqda uu ku leeyahay just waxa la diyaariyay guri bes iyo xaflad laakiin ruuxiyan isma diyaarin